Itoobiya waa ay holcaysaa qiiciya uura ayaa hawada isqabsaday dagaalka dib ayuu u qarxay Abiy Ahmed tala uma haya dadka Itoobiyaanka oo uu ku soo afmeeraya dagaalkan ku daba dheeraaday dhimasho iyo dhaawac fara badan ayaa la soo warinayaa in uu ka dhashay dagaalka Arbacadii ka qarxay halkaasi hay'adaha xuquuqda aadanaha eedeymo culus ayay u jeediyeen labada dhinac oo dirirtu ay dhex marayso maadaama ay beegsadeen goob carruurta lagu xanaaneeyo xaalka Itoobiya ma fiicno waa war degdeg ah iyo hayaanka news fadlan haddii aad ku cusub tahay page-kana Facebook follow soo dheh muuqaalkan like saar siina share garay si dad badan oo sidaadoo kale ah ay u gaaraan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah aan halkan ku soo gudbinno aad baad u mahadsantiin dhammaantiin muuqaalkan sii share gareeya oo saaxiibadiina kale ee baraha bulshada la wadaaga aad baad u mahadsantiin waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka holcaya gudaha dalka Itoobiya naftu kama maaranta nasiina marka aad soo daasho ama aad ka soo baxda shaqo waxaad u baahan tahay inaad hesho meel ay naftu ka helayso sidoo kale leh hawo dabiici ah aadna ku sheekaysan kartaan adiga iyo asxaabtaada ama adiga iyo lamaantaada caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa lagaga furay City Coffee oo aad ka heli karto cabitaanno coffee iyo cunnada fudud oo aad ka heli doontaan City Coffee waxa ay ku taallaa agaarka isgoyska kilometer 4 ama dabaqa Som Oil wixii faahfaahin kala xiriir taleefanka shaashada ka muuqda ha moogaanin City Coffee waxaa sii xoogaystay dagaalka dib Arbacadii uga qarxay dalka Itoobiya ee u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Itoobiya iyo kuwa jabhadda TPLF ee maamusha gobolka Tigray iyadoo mucaaradku ay guul la sheegteen TPLF ayaa sheegtay in ciidamadeeda geesiyaasha ah iska caabiyeen weerarka ciidamada dawladda federaalka Itoobiya uga yimid isla markaana ay wiiqeen saddexdii meelood ee ugu dambeysay waxaan dhaafnay furuntii dagaalka ee mucaaradka waxaan qabsadnay magaalada muhiimka ah ee Kobo oo ka tirsan gobolka Amxaarada waxaa sidaas lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka TPLF dawladda ayaa qiratay in ciidankeeda ay kala baxday magaalada Kobo balse waxa ay ku sheegtay xaalad dagaal ama xeelad dagaal sida lagu yiri bayaan ka soo baxay dhanka dawladda si looga fogaado khasaare xoog badan oo ka dhaca gudaha magaalada haddii rasaas la isku weedaarsado ciidamada difaaca waxaa qasab ku noqotay in ay ka baxaan magaalada Kobo oo ay difaac ka galaan duleedka magaalada waxaa sidaas lagu yiri bayaan ka soo baxay dawladda federaalka Itoobiya jimcihii iyada oo dagaalka uu sii xoogaystay ayaa ciidamada dawladda waxa ay duqeen ka fuliyeen magaalada Makalle ee caasimadda Tigray waxa ay ku dileen 4 qof oo shacab ah oo halkaasi ku jiray isla markaana ay qayb ka ahaayeen caruur TPLF ayaa tirada dhimashada gaarsiisay ilaa iyo 7 Addis Ababa waxa ay beenisay inay beegsatay goob shacab ah waxayna ku dooday in weerarkaasi ay ka fulisay goobo military hase yeeshee warkaasi waxa ka dhashay cambaareen caalami ah iyadoo dhinacyada cambaariyay ay ku jiraan hay'adda qaramada midooba u qaabilsan carruurta ee marka la soo gaabiyo magaceeda loo yaqaano UNICEF iyo dawladda UK UNICEF waxa ay sheegtay in duqeynta ay ku dhacday iskuul xanaanada carruurta ah ayna ku dhinteen dhowr carruur ah isla markaana kuwa kale ay ku dhaawacmeen tiro dad badan oo si rasmi ah loo ogeyn ayaa ku dhintay dagaalka gobolka Tigray tan iyo markii uu bilowday bishii November 2020 xabad joojin la gaaray bishii Maarjo ayaa hakisay dhiigii qubanaya taasi oo loo ogolaaday in si tartiib ah loo gaarsiiyo gobolka oo qaramada midoobo ay sheegtay in malaayiin qof ay halis markaas ugu jiraan macluul tan iyo dhamaadkii June dawladda Abiy iyo sidoo kale mucaaradka ayaa dhowr mar waxa ay sheegeen inay doonayaan inay galaan wada hadallo nabadeed balse waxay isku raaci waayeen qodobada wada hadalladaasi
arbacadiina dagaal cusub ayaa ka qarxay koonfurta bari ee xuduudda gobolka Tigray meel u dhow gobolka Amxaarada iyo Canfarta iyadoo labada dhinac uu midba midka kale ku eedeeyay inuu riday xabadda koowaad ee qoriga ka baxday. haddaba daawade aragtidaada qaybta hoose commentiga waad uga soo ra'yi dhiiban kartaa dagaalkan ka holcaya gudaha dalka Itoobiya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.